بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada wareysi gaar ah oo aanu la yeelanayno ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre mudane ra'iisul wasaare waa ku mahadsantahay fursaddan siisay soo dhaw su'aashaydu waxay tahay koowaad sanadka 2017 ee dhamaaday muxuu adiga kaaga dhignaa muxuu si aragtidaada shacabka Soomaaliyeed uga dhignaa shacabka Soomaaliyeed iyo kulligeenba horta sanadkaasi wuxuu nooga dhignaa sanad yididiile cusub u leh dalka Soomaaliyeed ugu horeyntii marka waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leeyahay ilaahay sanadkan hadda bilowday kiisa kale ha idinku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo farxad ilaahayna rajadiina ha ka rumeeyo intaas ka sokow 2017 waxa ay ahayd sanad ummadda Soomaaliyeed ay doorasho ka soo baxday dalku uu bilaabay in rajo iyo hami iyo farxad lagu farxayo sida dadka Soomaaliyeed ay bilaabeen isu doortaan ay talaabooyin hore u qaadaan marka shaqooyinkii ay ku haminayaan ummadda Soomaaliyeed ayaan bilownay inaan wax ka qabanno marka laga soo bilaabo maalintii xukuumaddeena la ansixiyay oo ahayd 1 April sanadkan taasoo qiyaastii ku aadaneed 9 bilood hadda inta ay xukuumaddu shaqeynayso waayahay 9 bilood oo aad hadda xafiiska joogto oo aad ra'iisul wasaare u tahay Soomaaliya xukuumaddaada waxyaabaha ugu muhiimsan ee qabatay dadka la wadaagi lahayd maxaa kamid ah ma horta xukuumaddu intay jirtay waa 9 bilood inkastoo anigu ka horeeyay ra'iisul wasaare ahaan laakiin waxyaabo badan ayaa dalka ka qabsoomay shaqooyin badan oo bilow ahna way jiraan hadda markii ra'iisul wasaaraha aan noqday shaqadii ugu horeysay oo dalka ka qabanay waxay ahayd waxaan shaqada bilownay iyadoo ay wadanka ka jiraan abaaro aad u baahsan iyadoo dadku ay dhibaataysan yihiin waxyaabaha ugu badan oo markaa shaqadaas ku xasuusto waxay ahayd sida ummadda Soomaaliyeed ay isugu soo gurmadeen iyagu dawlad ahaan anagu waxaan ka shaqeynay inaan aasaas u sameeyno isu imaatinkiisa gurmadka ummadda Soomaaliyeed waxayna ahayd sanad runtii la ogaaday gacan furnaanta iyo qalbi furnaanta iyo isjacaylka ummadda Soomaaliyeed maadaama malaayiin dollar ay soo aruuriyeen 5-6 milyan oo dollar in ku dhow dad Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa iyo gudihiisa jooga dhalinyaro iyo waayeelba taajir iyo faqiirba kumanaan kun oo dollar boqolaal kun oo dollar qaar bixiyay qaar 20-30 dollar bixiyay qaar yiri dharkayga ama waxa anigu aan haystaan wax ka bixinaya maanta alxamdulillah abaartii sida hore way ka fiican tahay laakiin wali tii ummadda Soomaaliyeed ay qabatay tii adduunyada aan kala shaqeynay inaan dunida lafteeda loogu yabeehay hay'adaha waxaan ka shaqeeyaa lacagta ugu badnayd sanadkii hadda la soo dhaafay iyada lafteedu waxay ahayd shaqo ay dawladda Soomaaliyeed gacan weyn ka geysatay iyadoo adduunyada indhaheeda ku soo jeedisay sida dadka Soomaaliyeed loogu gurman lahaa hadafkeenu marna ma aha laakiin ummadda Soomaaliyeed mar walba loo gurmado hadafkeenu waxa uu yahay mustaqbalka dhow hadii Ilaahay yiraahdo inaan ka baxno in mar walba dadka Soomaaliyeed la daboolo baahidooda laakiin annagu aan isku dayno inaan dalka ka hirgelino nidaam aan isku filanahay oo amnigeenu shaqeynayo oo dhul beereedkeena aan dib beeraha loo abuuro oo dalku isaga uu ismasruufi karo dalku isagu uu yeelan karo waxyaabo ku filan markii la yiraahdo waxyaabaha ay ummadda Soomaaliyeed ku munaafacaadsanayeen waa dhinaca oo humanitarianka ama gargaarka bani'aadminimada iyo gurmadkii abaaraha iyo dadkii ku tabaaloobay loo galay waad ka sheekaysay wax badan aan runtii laga qabtay su'aasha weydiinta waxay tahay maxaa hadda talaabooyin ah oo aad u qaadeen in aan mar kale aysan markay sidan oo kale xaalado degdeg u yimaadeen oo abaaraha iyo arrimaha bani'aadminimada la xiriira aan haddana mar kale yabo la gelin oo talaabooyin oo dawladdu ay qaaday ما hadda waxaa jira wasaarad arrimahan ku shaqeeya waxaa jira 3-4 wasaaradood oo ka wada shaqeeya
waxa la yiraahdo ka hortagga abaaraha iyo gurmashada haddii mustaqbalka ay dhacdo. waxaa kaloo jira qaab hadda aan rabno inaan u wajahno ka shaqaynta dhaqaalaha waddanka oo dhan si maxaa la yiraahdaa dadka Soomaaliyeed awoodda ama cufnaanta ay u leeyihiin inay u adkaystaan dib hadduu yimaado ay ka adkaato ama ka weynaato sidii hore sababtoo ah waxyaabaha aan rabno in dadku ay helaan waxaa ka mid ah in qof walbo Soomaaliyeed oo rabo inuu qayb ka noqdo dhaqaale abuurka waddanka ay dawladdu gacan siiso. waxaad arki doontaa marka arrimaha hadda gargaarka bini aadamka waxaan rabnaa mustaqbalka inaan yareyno oo aan u bedelno horumarka waddanka. macnaheedu waxay tahay inta dadka Soomaaliyeed mar walba adduunyadu iimaan lahayd sidii dhacaysay ku dhawaad 30 sano hadda in hay'ado yimaadaan ay mar walba ummadda Soomaaliyeed u gargaaraan oo aan aad uga mahad celinayno. waxaan rabnaa inaan ummadda Soomaaliyeed ku jiheyno iyagu inay dalkooda wax ka soo saartaan. shaqada ugu badan oo hadda wadnana waa taas. bishan hadda bilaabatay sanadka cusub shaqada ugu horeeya oo aan qaban doono waxay tahay in aan u soo bandhigo ummadda Soomaaliyeed qaabka aan rabno in la kordhiyo wax soo saarka waddankeena gaar ahaan dhinaca beeraha iyo raashinka. dhinaca ammaanka mudan ra'iisul wasaare iyo dhismaha ciidanka iyo la dagaalanka nimankan argagixisada ee al-shabaab maxaad tilmaami kartaa oo laga qabtay muddadii hadda xukuumaddu ay shaqeynaysay? la dagaalanka argagixisada xukuumadda hadda jirta iyo madaxweynaha waxaan bilownay inaan u wajahno qaab ka duwan qaababkii hore. waxaan isu keenay dhalinyarada iyo dumarka iyo culummada waxaan isu keenay ganacsatada iyo qof walba oo waddankan hormuudka ah. waxaan isu keenay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. waxaan ka fikirsanahay in sida kaliya oo looga adkaan karo cid walba oo argagixisaah ay tahay in ummadda Soomaaliyeed ay isbiirsato inay iyagu isu yimaadaan in iyagoo meel ka soo wada jeeda ay ka wada shaqeeyaan amniga. taas ka sokow waxaan qaadnay tallaabooyin muhiim ah. waxaa ka mid ah kow inaan bilowno horta baaritaan aan dib ugu sameynayno annagu tayada tirada ciidankeena iyo qalabka uu haysto. labo meelaha ay kala joogaan siday u kala joogaan. tirakoobkaasi baaritaankaasi hadduu soo dhammaaday kaasoo noqon doona waxa mustaqbalka u ah aasaaska ama saldhigga sida dib loogu habeyn doona ciidanka. taasi waa kow. tan labaad waxaan leenahay hadda mabda annaga iyo dowlad goboleedka dhan naga dhaxeeya oo aan ku wada shaqeyno oo ah qaabka dib u dhiska ciidanka Soomaaliyeed. saddex waxaan bilownay in aan dib u abaabulno hay'adihii jiri jiray oo ay ka mid tahay xaqsiinta ciidamada oo aan rabno markii sharciga baarlamaanku haddii la yiraahdo soo dhamaystiro in lagu wareejiyo ciddii ama aabahood uu dhintay oo hadda weli ciidanka ka tirsan in halkaa lagu wareejiyo iyagoo weli mushaarkooda qaadanaya. cidda howlgab ku dhacay in halkaas lagu wareejiyo si loo kala saaro ciidanka shaqeynaya dagaalka ku jira iyo kuwa ka tirsan ciidanka laakiin qaab kale uga tirsan. halkan waxaan ka sameynay magaalada Muqdisho ciidanka la yiraahdo ciidanka xasilinta magaalada Muqdisho aan runtii aaminsanahay inay dalka Soomaaliyeed ku soo kordhiyeen wax weyn amnigana wax badan ay ka qabteen. marka loo fiiriyo dhacdooyinkii dhici jiray 2017 markii lagu qiyaaso 2016 numberku wuxuu yahay 12 laakiin waxaan ugu dhacday dhacdo aad u xanuun badan 14 Oktoobar oo runtii ummadda Soomaaliyeed gilgishay taasoo ahayd fariin aad u culus oo runtii ka soo horjeeda jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. waxaa kaloo hadda noo suurto gashay annaga iyo AMISOM iyo deeq-bixiyayaasha inaan ka heshiino sidii ciidamada Soomaaliyeed loogu wareejin lahaa iyagu inay mas'uul ka noqdaan amniga waddanka oo 2018 ahaan doonta shaqooyinka ugu waaweyn oo dalka laga qaban doono.
waxaa kaloon bilownay inaan ka caawino ciidamada inay dib u abaabushaan xeriyooyinka ay lahaan jireen si 2018 loo hirgeliyo xerooyin ay ciidamada Soomaaliyeed ay degan yihiin maadaama hadda aan hayno marka tayadii iyo tirakoobkii iyo baahidii waxay u baahnaan doontaa in aan u helno agabkii suurto geli lahaa in loo soo dhammaystiro in ciidan la dhiso waqtiga qaadanaysa laakiin waxaa muhiim ah inaan ogaano sida kaliya oo dalkan annagu aan amnigiisa wax uga qaban karno waxay tahay mustaqbalka annagu inaan la wareegno amniga dalka meel walba oo jira meel walba dalka ka mid ah ugu dambeyntii waxaa jiri doona oo ka dhaxeeya dowlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka tirooyin aan isku ognahay oo ah meequu noqonaya militarigu meequu noqonaya boolisku sidee loo howlgelin doonaa qaybaha kala duwan waa maxay mas'uuliyadda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu sida madaxweynaha shaqadu u bilaabay waa markii uu isagu bilaabay ugu horeyntii in aan ansixinay in aan helno qorshe ama istaraatiijiyad kulligeen aan wada seexanay dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir labo inaan yeelanay guddi golo amni oo madaxweynuhu uu hormuud u yahay laakiin dowlad goboleedyada ay ku jiraan loogana shiro arrimaha amniga meel fiican ay shaqada maraysaa waayahay rasaare arrinta isla ciidanka ku saabsan iyo dhismahooda iyo tayintooda waxaa dhinac socda tababarada ciidamada oo xiriyo kala duwan aan arkayna idinkoo qaar tababar usoo xiray kuwa kale la wareegay dadaas waa la iska weydiiyaa ciidamadan dowladaha kale ay qaarkood tababaraan ama tababarada kala duwan qaba sidee inay isla jaan qaadaan ama ay shaqo isku mid qabtaan ay u suurtagelaysaa oo ay isula shaqayn karaan maya fiiri 27 sano ku dhawaad 30 sano ayaa wadankeena dib ku soo jiray oo marba tartiib looga soo kabanayay haddana meel fiican uu joogo dad dalal kale ka yimid wadamo kale ayaa noo soo gurmaday oo noo yimid oo nala shaqeeyo oo naga caawiya inay ciidamadeena noo tababaraan waxaan gudbinay hadda shalayto 31 bisha qorshe cusub ah qorshihii annagu aan kula wareegi lahayn ciidamada Soomaaliyeed mustaqbalka waxyaabaha aan rabno marka aan qorshahaas ka munaaqashoonayno kalena munaaqashoonayno wadamada ay shaqadu nagala dhaxayso waxay tahay qaabkee ayaa loo siinayaa ciidamada Soomaaliyeed tababarka waa in annagu aan leenahay awoodda ama doorashada fikirka qofka Soomaaliyeed madaxiisa lagu shubayo si uu u difaaco danaha dadka iyo dalka Soomaaliyeed weli maanay dhamaan shaqadaas laakiin waxaan wadnaa in la sameeyo horta tababarayaal Soomaaliyeed waa bilaabeen booliisku hadda militariguna waa bilaabeen laakiin waxay u baahan in la sii kordhiyo la helo tababarayaal Soomaaliyeed oo iyagu tababara ciidanka Soomaaliyeed waa mahadsantahay rasaare dhinaca dhaqaalaha waxaa la sheegayaa inuu ka jiro horumar qaabka loo maareeyo dowladda oo marar badan aan maqalno adiga iyo mas'uuliyiin kale oo wasaaradda maaliyadda oo ka hadlaya in hadba progress uu jiro markii waqti la joogaba waxa laga qabtay oo adoo qodobaynaya la dhihi karo way uga duwan tahay xilliyada hore maxaa ka mid ah dhinaca maaliyadda dhinaca maaliyadda waxay uga duwan tahay waxa ay tahay fikirka aniga iyo madaxweynuhu aan ka qabno arrimaha maaliyadda wadanka hadda waxa igala hadlaysay abaaraha see wax looga qabtaa waxa igala hadlaysay ciidan see loo dhisaa waxa igala hadlaysay dalka sidee loo hormariyaa wax walba oo aad rabtid inaad qabatid waxa ay kalifaysaa qarash in lagu bixiyo haddii marka aadan haysan dhaqaale ama aadan maareyn dhaqaalihii wadanka soo galayay ama kana aad haysatid haddii aadan maareyn waxyaabaha kale oo wax kama qaban kartid amniga waa waxa ugu muhiimsan oo qof walba Soomaaliyeed uu ku haminayo in la dhameystiro sida ugu dhaqsaha badan in ciidan la dhiso in amniga wax laga qabto in aan mar dambe ummadda Soomaaliyeed aanay argagaxiso soo weerarin laakiin si arrinka wax looga qabto waa in ciidamadu ay haystaan agabkay u baahnayeen si u helaan agabkay u baahnayeen waa inay dhaqaale helaan qof walba Soomaaliyeed marka waa inuu horta fahmaa in dhaqaalaha wadanka wax laga qabto
waa furaha horumarka dalka intiisa kale waxaan aaminsanahay marka waxa ugu weyn oon ka qabano ugu horeeya horta waxay tahay qaab fikir siyaasad noocee ah ayaan ka leenahay siyaasadda aan ka leenahay noocaas ayay ahayd welina tahay ahaana doontaa maxaa inoo qabsoomay shalayto waxay ahayd 31 bisha December 2017 maanta waa 1 Janaayo 2018 waa u sheegay markii wasaaraha la iga dhigay madaxweynahan uu u sheegay shacabka Soomaaliyeed markuu madaxweyne noqday in arrimaha dhaqaalaha wax laga qaban doono oo ugu horeysay in qof walba oo dawladda Soomaaliyeed u shaqeysa bil walba mushaarkeeda la siin doono Janaayo ilaa December in qof walba mushaarkeeda la siiyay waxaan aaminsanahay adiga laftaada inaad marxaati ka tahay maadaama aad dawladda u shaqeysid taas waa koow labo in deyntii daruuriga ahayd fiiri yani mushaarku waa deymaha daruuriga ah oo dawladdu ay gasho haday bixin weyso in deyntii dalka gudihiisa ahayd oo dalka uu gali jiray sanad walba in sanadkan aanan deyn gelin oo meeshii aan ugu nimad ay joogto qof walbana mushaarkeeda la siiyay inta badan kharashaadka kala oo dawladda la bixiyay waa labo saddex in adduunyadu ay maanta qareen ay yiraahdeen Soomaaliya waxay maraysaa meeshii ay ugu wanaagsaneed inay yiraahdaan marka ugu horeysa imtixaankii December laga qaaday dawladda Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed marka la yiraahdo maamulidda dhaqaalaha waxa soo baxday inay hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunku bay yiraahdeen Soomaaliya waxay sameeyeen horumar aad u weyn waana soo dhaweynaynaa horumarka ay sameeyeen number 4 in hay'adda lacagta adduunka ay leedahay waxaan rabnaa inaan dawladda Soomaaliya mustaqbalka kala shaqeyno sidii dib loogu abaabuli lahaa shilin Soomaali dhab ah oo dalka dhaqaalihiisa wax ka bedela ma aha shilin Soomaali la daabaco la keeno oo dadka Soomaaliyeed dhaqaalahooda lagu dhibaateeyo laakiin shilin Soomaali bangiga adduunka iyo IMF iyo adduunyada iyo doonarada dhan ay og yihiin nala og yihiin qaabka loo maareynayana ay tahay qaab ku saleysan qaab kobcinaya dhaqaalaha dadka Soomaaliyeed wax u galaya oo aan wax u dhibayn in halkaas la soo gaaray iyada lafteedu waa muhiim in arrinkan ahaa in dhaqaalaha wax laga qabto ay kamid ahayd in dalka dib u dhiskiisa wax laga qabto oo aan helnay dhaqaale lagu dhisay jidad waaweyn oo kamid yahay jidka Xamar iyo Jowhar u dhaxeeya oo 90 kilomitir jidka Xamar iyo Afgoy u dhaxeeya oo hadda la bilaabi doono bilowga horaanta sanadka 2018 waxa soo dhan waxyaabaha weyn sanadkan canshuurta laga soo aruuriyay wadanka markan waxay soo gaartay in IMF iyo World Bankiga wixii aan kula ballanay oo ahayd sanadkan intan baan soo aruurinaynaa oo ahayd in ku dhow 140 milyan inaan gaarsiinay oo aan soo aruurinay iyada lafteeda horumar aad u weyn insha Allah ra'iisul wasaare dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa kamid ahay shicaaraadkii ama halkudhigeeda ugu muhiimsan oo dawladda ay aad uga hadlaysay inay wax ka qaban doonto maxaa tallaabooyin ah oo arintaas la xiriira ama shuruuc ah oo la xiriira oo aad sameyseen oo hadda la dhihi karaa waa shaqo ka socota ama waxba laga qabtay la dagaalanka musuqmaasuqa sidiisaba wuxuu muhiim u yahay dawladnimada ummadda Soomaaliyeed oo dhan haddii aanan dawlad wanaag jirin wadanka dadka rajadooda ay hamigooda xumaanay haddii musuqmaasuq jiro dhaqaalaha wax kama qaban kartid haddii musuqmaasuq jiro ciidanka wax kama qaban kartid haddii musuqmaasuq jiro isku haynta ummadda wax kama qaban kartid waayo in yar ayaa awoodda wadanka haysanaysa musuqmaasuqa in lala dagaalamo waa shaqo u baahan in qof walba Soomaaliyeed uu qayb ka noqdo annaga ka xukuumad ahaan iyo dawladda hadda jirta la dagaalanka musuqmaasuqa waxa uu noo yahay sidaan idin sheegay falsafadii markii hore aan idin kala hadlo ahayd qaabka aan u arko dhaqaalaha Soomaaliya sida uu u yahay number 1 in looga fikiro ama marka meeshii ugu horeysay in laga fikiro ayay musuqmaasuqana qayb ka tahay waxaan baarlamaanka u gudbinay sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa hadda waxaan rajeynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo golaha shacabku way dhameystiraan in aqalka sare iyaguna ay soo dhameystiraan marka ay soo dhameystiraan sanadkan bilowday haddii Ilaahay yiraahdo hadda maantay
waxaan xoogga saari doonaa inaan dhisno guddi madax bannaan oo ah guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa maalinta dhidibada loo taago guddigaas madaxa bannaan oo dowladda xukuumadda ka madax bannaan oo isagu fuliya wax walba u baahan yahay oo ka hortagga musuqmaasuqa ah waxaan aaminsanahay dalku tallaabo weyn inuu hore u qaaday. maxaad ka filaysaan guddigaas iyo sharcigaas marka la baasgareeyo oo guddigaasna la dhiso maxaad ka filaysaan inay ka bedeli doonto arrinta musuqa oo Soomaaliya marar badan dunidu ay dhaxday wuxuu ka mid yahay wadamada ugu musuqmaasuq badan? waxaan ka aaminsanahay in ay musuqmaasuq kaliya aanay hoos u dhigi doonin waan aaminsanahay inay aad hoos ugu dhigi doonaan waxaan aaminsanahay guddigu marka uu yimaado ragga iyo dumarka loo magacaabi doono oo ka shaqayn doona waxaan aaminsanahay inay weji iyo albaab cusub u iftiimin doonaan ummadda Soomaaliyeed. dhinaca xiriirka dibadda mudane ra'iisul wasaare xukuumaddu waxay mowqif dhexdhexaad ka qaadatay arrinta khaliijka khilaafaadka ka jiray dad badan oo siyaasadda ku jira waxay dhaliileen arrintaas oo waxay yiraahdeen xukuumaddu inay mowqif kala qaadato ayay ku fiicnaad ama ay dhinaca kale u dhigto arrinta marka maxaad uga jawaabaysaa dooda noocaas dadka qaba? horta waxaa muhiim ah madax walba oo dalka joogta shaqada ugu horeeya oo laga rabo inay qabato waxay tahay inay difaacdo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed waxaa kaloo laga rabaa in go'aan walba ay gaarayso uu yahay go'aan ay u gaarayso mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed go'aanka annagu aan gaarnay inaan dhexdhexaad noqono waxaa laga yaabaa dawlad ahaan in maanta sida aad adiguba leedahay dad badan ay leeyihiin maxay dhibkan u marayaan madaxda hadda joogta laakiin annagu waxaan ka shaqaynayno ma aha annagu inaan dhib marno waxay tahay in caruurteennu ay dhib annaga naga yar ay maraan inaan dhexdhexaad noqono oo aan ka noqono dhibaatooyin dalka bannaanka uga baxsan waxaan aaminsanahay inay tahay siyaasad ummadda Soomaaliyeed ay u aayi doonaan mustaqbalka xanuun hadda waa la marayaa meelaha qaarkood laakiin waxaan aaminsanahay inay tahay siyaasad ummadda Soomaaliyeed u aayi doonaan annaguna waxaan nahay dawlad Soomaaliyeed oo soo koraysa hadda hadafkeenu waxa uu yahay cid walba oo aan la shaqayn karno wax la qabsan karno inaan la qabsano marka ugu dambeysana go'aankeenu wuxuu ku salaasan yahay ilaalinta sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. ma jiraa wax cawaaqiba oo aad ka cabsi qabtiin xukuumaddu ama walwal ay ka qabto ama hadda ka dhashay go'aankaas dhexdhexaadnimada ku salaysan? go'aan walbood gaarto wuxuu leeyahay laba dhinac oo laga eego laakiin marka ugu horeysa waxa ay tahay go'aanka uu madaxweynuhu gaarayo ama ra'iisul wasaaruhu gaarayo ama xukuumaddu ay gaarayso hal mid baa laga fiirinaya meeshaan ka fiirinna waxay tahay danta ummadda Soomaaliyeed ma ku jirtaa ra'iisul wasaare gudaha hataa haddaan usoo laabano beri dhexdaas mar ayaa aad waxa usoo shaacbaxay kala aragti gadisnaaso idin dhexaysa dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah ee federaalka ah inkastoo hadda ay u muuqato in arrintaas la xaliyay waddan noocee ah u marteen arrintaas in la xaliyo maxaase damaanaad ah inaan mar kale haddana buuq uusan bilaaban doonin arrintaas ku saabsan? fiiri mar walba oo horta wada shaqeyna ay jirto waa imaanaya marmar in uu dhaco isfaham waa ama khilaaf uu dhaco ama kala aragti duwanaansho haddaan si kale u iraahdo kala aragti duwanaanshaha macnaheedu waxay tahay in la isqa qabsado marmarka qaarkood waxay aad uga wanaagsan tahay in la kala tago dalkeennu waa dal hadda soo koraya waa muhiim in dadka dhan ay ka wada tashadaan danaha ummadda Soomaaliyeed aniga shakhsiyan waxaan aaminsanahay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka in xiriirka aan la leenahay uu aad u wanaagsan yahay marmarka qaarkood inaan wada hadalno aan arrimo ka wada hadalno masiir u ah ummadda Soomaaliyeed waa sababta aan u dooranay nidaamka ummadda Soomaaliyeed ee qaateen oo ah inaan nahay federaal 9 bilood oo aan joognay waxaan isu nimid marar badan 3 biloodba mar ugu yaraan halkan ayaan isugu nimaadnaa shirka amniga qarankana waan galnaa shirka dawlad goboleed ee dawladda federaalka oo loogu falanqeynayo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeedna waan galnaa macnaheedu waxay tahay xiriirka naga dhaxeeya wuu sii xoogeystay hadda waxaan aaminsanahay in dawlad goboleedyada gobolka Banaadir dawladda federaalka kulligan aan ogaanay kulligan in loo igmaday
inaan gaarsiino ummadda Soomaaliyeed meesha hadda ay joogaan meel ka wanaagsan waxaan nala ku qiyaasi doona nala ku cabiri doonana ay tahay maxaan u dhisnay ummadda Soomaaliyeed intaan anagu aan xukunka hayn waayahay gobolka ama dowlad goboleedka Galmudug bari dhaweed waxaa jiray heshiis ay gaareen maamulka Galmudug ama dowlad goboleedka Galmudug iyo ahlu sunna wal jamaa oo in muddo ah kala aragti duwana oo isku hayay maamulka deegaankaas dowladdu door noocay ah ay ka qaadatay in arintaas heshiis laga gaaro sida la socotaanba markii madaxweynaha la doortay waxyaabihii ugu horeeyay uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa dib u heshiisiinta waa ogtihiin hadda ka hor in dowladda federaalku halkan magaalada Muqdisho aan anagu isugu keenay madaxda reer Galmudug qaarkood iyo madaxda markaa ka soo jeeday ahlu sunna qaarkood shaqadaas bilaabatay maalintii aan halkan nimid oo socotay ilaa waqti dheer dad badan oo Soomaaliyeed oo reer Galmudug iyo ka soo jeeda iyo Soomaalida kalaba dowlad goboleedka ka soo jeeda ay iyaga laftooda ay gacan weyn ka geysteen ama xildhibaanaha ahaadaan ama senataraha ahaadaan ama siyaasiyiinaha ahaadaan ama wada dhaqameedka ahaadaan waxay ugu dambeyntii soo gaartay in is-afgarad heshiisa uu dhaco heshiiskaas oo aan aaminsanahay inuu yahay mid saldhig u noqon doona dadyowga Soomaaliyeed ee ka soo jeeda dowlad goboleedka Galmudug oo dhan inay isu yimaadaan la wada hadlo laga tashado mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed waa arin aad u muhiim ah annagu waxaan gelinay xoog badan waxaan rabnaa inaan xoog badan sii gelino si heshiiskaasi uu u miro dhalo waxaan aaminsanahay in horumarka iyo amniga gobolkaas gaar ahaan guud ahaan dalka Soomaaliyeed oo dhan ay uu heshiiskaasi wax ka tari doono sidaas daraadeed wali waxaan codsanayaa qof walba Soomaaliyeed oo awood ku leh inuu nagala sii shaqeeyo lana shaqeeyo madaxdaas kala duwan ee ka soo jeeda gobolkaas ee arrimahaas ku howlan in aan iyagana ugu baaqo fadlan shaqadii ma dhamaanay wali aan sii caawinay intaan ku hubsanayno meesha loogu talagalay mudane wasaare sharciyo iyo hindisa sharciyadii kala duwan ayaad xukuumaddu ay baarlamaanka horgeysay sharciyadaas haddii aad wax nooga sheegtid muhiimadda ay u leeyihiin dalka iyo haddii ay yihiin kuwo wada cusub iyo kuwo hore u jiray wax laga bedelay waxay isugu jiraan shuruuc cusub iyo kuwo aan wax ka bedelnay kuwa aan wax ka bedelnay sharciga idinkeedan hoos yimaada kamid ah oo ah sharciga saxaafadda waxaan u gudbinay ku dhawaad 15 sharci intii aan jirnay xukuumaddu jirtay haddana kuwo kale oo badan aan gacanta ku haynaa oo u gudbin doona baarlamaanka labadiisa aqal waa markii sida aan ka dareemay baarlamaanka laftiisu runtii uu ugu shaqo badnaa sababtoo ah waxay shuruucdaas lafteedu waxay ahayd oo aan ku gudbinay waqti aad u kooban waxay siisay baarlamaankana fursad weyn iyaga laftoodu ummadda Soomaaliyeed runtii ugu qabtaan shaqooyin wax ku oola shuruucdaas waxaa ka mid ah kii hadda aan ka hadlayno ah sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa oo ah markii ugu horeeyay oo la geeyay aaminsanahay oo aan aaminsanahay wax badan inuu wadanka wax ka tari doono waxaa ka mid ah sharciga isgaarsiinta waxaa ka mid ah sharciga xakamaynta hubka waxaa ka mid ah sharciga waxbarashada sharciga biyaha sharciga maareynta maaliyadda waxaa ka mid ah shuruuc badan oo mid walba horumarka wadanku wax ka tari doona kuwa badan aan noo dhiman oo aan rabno inaan geeyno iyagana baarlamaanka waxa ogaanaysaa mar walba oo sharci la dhameystiro ummadda Soomaaliyeed ay isla ogol yihiin oo la geeyo baarlamaanka oo lagu shaqo bilaabo wuxuu wax ka tarayaa masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed iyo dhaqaalaha amniga horumarka adeega bulshada iyo garsoorka horumarinta iyo gacan qabashada dhalinyarada ayaa kamid ahayd waxyaabihii in shaqo loo abuuro dadka da'yarta ah ee wadanka jooga waxa jiray hawl lagu shaqaalaysiinaya dhalinyaro Soomaaliyeed nuxurka barnaamijkaas muxuu ahaa maxaase ka hirgalay oo maaragtay fursad aad uga abuurtaan dhalinyarada maadaama siyaasadeenna ay lafdhabar u ahayd in
la kobciyo dhaqaalaha si wax looga qaban karo arrimaha amniga iyo arrimaha kale oo dhan. su-aashu waxay ahayd markaa xagee baan ku bilaabnaa, waa maxay qaabka ugu wanaagsan oo lagu kobcin karo dhaqaalaha waddanka. in qof Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah uu shaqeeyo waa qayb ka mid ah horumarka waddanka iyo kobcinta dhaqaalaha waddanka, waa qayb ka mid ah abaabulidda wax soo saarka ummadda iyo bulshada. si marka loo abaabulo waxaan idhi xagee wax laga qabtaa dib u dhiska dalka iyo in la isku xiro shaqo la'aanta, dib u dhiska dalka iyo kobcinta dhaqaalaha in la isku xiro, kobcinta dhaqaalaha iyo maareynta maaliyadda iyo dhaqaalaha in la isku xiro. sidaas daraaddeed ayaan hadda idiin niri waxaa la dhisayaa meelo badan oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ka mid ah oo aan dib u dhisi doono. meel walba oo la dhisayo ama ha ahaato xarumihii aan sheegnay oo wasaaradihii hore oo burbursan oo qaar la dhisi doono, ama ha ahaato jidad la dhisi doono, meel walba oo shaqo lagu bilaabo in la dhiso waxay keenaysaa in dadi ay ka shaqeeyaan, yacni shaqo la'aanta ayay hoos u dhigaysaa. markay shaqo la'aanta hoos u dhigto waxaas ka soo baxayana horumarka dhaqaalaha waddanka ayay wax ka taraysaa. markaad jid dhisto wuxuu wax ka tarayaa amniga, dhaqaalaha keliya wax ka tari maayo. waxaan bilaabnay markaa maadaama 75% dhalinyaro ay yihiin dadka waddanka jooga, dhalinyaradaas iyaga ah inaan shaqo u abaabulno. 5,000 ayaan ku bilownay, waxaan rabnaa inaan gaarsiino hadda sanadka soo socda haddii ilaa yiraahdo 15,000 ama 20,000 iyadoo loo eegayo sida aan horumarka dhaqaalaha usii kobcino. ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan idhaahdo marka ugu dambeysa waa in ka shaqaynta maareynta maaliyaddu ay nagu duudaa dariiqa ah in 5,000 milyan ama inta ka badan 5 bilyan oo ku dhow 6 bilyan oo dollar oo nala ku leeyahay in deyntaas amaahdaas nala ka daayo si aan u noqono waddan xor ah oo dhaqaalihiisa dib ugu yagleela. in dariiqaas uu nagu duwo inaan leenahay lacag annaga noo gooni oo la yiraahdo shilin Soomaaliya oo shaqaysa oo qiimo leh oo ku salaysan suuqa adduunka. waxaas si aan marka u sameeyno waxaan u baahanahay shuruuc inaan helno, laakiin ma ka indhaha kama qarsan karno in 75% dhalinyaro ay shaqo la'aan yihiin. shaqo abuuristu marka waa qayb ka mid ah siyaasadda xukuumadda. waayahay dad badan oo Soomaaliyeed oo maxaabiista oo ku xirnaa wadamo kala duwan oo kuwa Ethiopia laga keenay ay ugu badnaayeen la soo daayay, laakiin haddana waxaa jira dad badan oo weli ku duruufaysan meelo kala duwan oo dunida ah. ha ugu darnaato Libya oo dad Soomaaliyeed maalin kasta laga keenayo sawirro iyo muuqaallo aad u xanuun badan. maxaa tallaabo ah oo ra'iisul wasaare aad ugu gurmanaysaan dadkaas Soomaaliyeed barnaamijyada ku dacdaraysan oo kuwa Libya jira oo kale ay ugu daran yihiin? xukuumadda ama madaxda Soomaaliyeed kulligood waxay isla ogol yihiin in haddii ay jiraan dad Soomaaliyeed oo maxaabiista oo dalka dibaddiisa ku dhibaataysan loo gurmado. ilaa hadda waxaan ku guuleysanay in aan soo deyno maxaabiis ku xirnaa wadamo kala duwan. Ethiopia ugu horeysay oo aan 100 iyo xoogaa ka soo deynay. maalin dhoweed nin ay dadka saxaafaddu aad ugu farxeen oo boqorka bartamaha la yiraahdo ayaan ka soo deynay kaligiis. weli dad kale nooga maqan oo aan rabnaa oo wada hadal kula jirnaa inaan ka soo deyno. Seychelles sidaas oo kale 2 mar ayaan ka keenay maxaabiis Soomaaliyeed oo aan ka soo deynay. dowladda India waxaan la seexanay heshiis aan marsiinay baarlamaanka oo aan sharci ahayn laakiin heshiis ah inaan maxaabiis badan oo nooga xiran iyagana aan ka soo deyno. si marka aanay shaqadu xabad nooga noqon waxaan magacawnay guddi ka kooban golaha wasiirada ka mid ah oo wasaaradda cadaaladda, wasaaradda arrimaha dibadda oo uu kor joogteeyo ra'iisul wasaare ku-xigeenku oo ay tahay shaqadoodu inay daba galaan meel walba ay dad Soomaaliyeed oo maxaabiista ku xiran yihiin oo aan rabno inaan ku bixino wax walba aan awoodno xoog iyo dhaqaalaba. shaqadaas waxaan aaminsanahay inay si wanaagsan u socoto. waan ka xumahay in dad Soomaaliyeed ay dhibaataysan yihiin gaar ahaan kuwa hadda aad ka hadashay Libya
qayb kamida waxa weeyaan shaqada ay wado xukuumaddu haddii ilaahay yiraahdana dadka Soomaaliyeed waxay ogaanayaan inaanay xukuumadooda waxba ka hakran doonin haddii ilaahay yiraahdo civil aviation-ka ama maamulka hawada Soomaaliya ayaa iyadana aad loo hadalhay inuu horumar ka jiray sanadkan intii xukuumaddu ay shaqeynaysay daraad waxaa madaxweynuhu daahfuray habkii lagu soo wareegay Soomaaliya oo halkan laga maamuli doono nidaamkeeda hawada ma dhameystiran yahay mise waxba ka dhiman muxuu uga dhigan yahay dawladda iyo shaqada ay qabanayso ee la xiriirta maamulka hawada horta intaadan yani civil aviation kaamada maareynta hawada Soomaaliyeed inta aadan u gelin ka hor waa inaan horta ku bilownaa markii xukuumaddu ay shaqada bilowday waxyaabihii ugu horeeyay oo bilownay inaan ka shaqeyno maanay ahayn kaliya in hawada lala soo wareego oo ogtahay diyaaradu halkan markii ka tagaan ay Nairobi aadayaan dadka Soomaaliyeed waxay sii mari jireen meel wajeer la yiraahdo dib badan oo waqti dheer taagnaa ayuu ahaa waxa laga yaabaa dadka Soomaaliyeed inay dhaqso isaga ilaabeen laakiin waxay ahayd xoog iyo dadaal madaxweynaha iyo xukuumaddu ay bixiyaan oo lagu gaaray horumarkaas aan dawladda Kenya dib ugu heshiino waxa ku xigtay inaan niraahdo aeroboortka magaalada Muqdisho muusan shaqeyn habeenkii sababtu u shaqeyn waayo waa maxay waxa la yiri waxa ka maqan agabkii nalalka uu ku shaqeyn lahaa in dib loo yagleelo aeroboortka markii aan u sameynay nalalkii iyo wixii oo ay suurta gashay isbuucii ku xigay waxa soo degtay diyaarad halawday habeen oo shidaalkiina uu ka dhamaan rabay haddii aanay aeroboorkan ku soo degi kari lahayn ay dadku dhiman lahaayeen waxaan rabaa marka horta in la arko muhiimadda ay leedahay in waqti walba la isku dayo waqtigeeda in lagu qabto 27 sano ku dhawaad ama ka badan ay maqneed maamulidda hawada Soomaaliyeed waxaan gelinay wasaaradda iyo xukuumadda iyo madaxweynaha kulligan iyo dadkii naga horeeyaba waxay soo geliyeen xoog aad u badan laakiin waxaan aaminsanahay haddii dib loogu noqdo inta wada hadal aan galnay ama wasiirka iyo dadka ka shaqeeya ay safreen ama warqada aniga madaxweynuhu aan seexnay si loo hirgeliyo ayaad malaha waxa ka fahmi lahaydeen dhibka aan loo soo maray waxaan aaminsanahay marka in ay tahay in hawadii ummadda Soomaaliyeed laga maamuli doono dalka Soomaaliyeed inay tahay sharaf iyo karaamo u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed ma dhameystirna wali waqti yar qaadanaysaa inta la dhameystiray laakiin inta ugu badneed way soo dhamaatay waxa kale oo rabaa shacabka Soomaaliyeed inaad ogaataan ma aha soo wareejid kaliya waxay wax ka dari doontaa iyada lafteeda dhaqaalaha iyo kobcinta dhaqaalaha sidaan hore idin sheegay iyada lafteeda waayahay mudane ra'iisul wasaare dadka idin dhaliila xukuumadda dhaliisha u haya waxay leeyihiin waxay idinku eedeynayaan adayg iyo inaadnaan mucaaradka fursad badan siinin waxa uga jawaabaysaa arrintaas horta kow waan soo dhaweynayaa qof walba Soomaaliyeed oo na dhaliilaysa haddii aan la dhaliilin ma wanaagsanaanayno haddii aan la dhaliilin shaqadeenu ma ka sii wanaagsanaanayso meesha hadda aan joogno in la tilmaamo in la dhaliilo in la toosiyo aad baan u ogolnahay dhaliishu laakiin waa inay ahaataa mid ah waxaan rabnaa dalka inaan sii hagaajino dhaliishu ma aha inay ahaato mid ah dan shakhsi ama qof shakhsi ah oo dan gooniya ku raadsanaya inuu dhaliilo dawlad ama nidaam Soomaaliyeed taasi waa taas inaan adagnahay waa dhab waxaan ku adagnahay shuruucda wadanka ilaalinta sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed dib u yagleelidda dawladnimada waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad hami iyo qable maalintii madaxweynuhu uu shaqada bilaabay iyo maantay waa kala labo sida wadaninimada ummadda Soomaaliyeed looga hadlo maanta waa lagu yani waxa ay maraysaa in dadka Soomaaliyeed ay siyaasiyiintu maanta ay ka wada hadlaan shacabka sidii loogu dhawaan lahaa in shacabka Soomaaliyeed in loo soo dhawaado ay tahay falsafad cusub oo siyaasiyiinta oo dhan maanta ay ka wada hadlaan oo ah siyaasad cusub oo lagu tartamo waxaan aaminsanahay inay dhalisay
shaqada aan wadanka ka qabanay sababtoo ah anaga aaminsan aniga iyo inta ila shaqeysa ayaa aaminsan awoodda wadanka in loo soo celiyo shacabka Soomaaliyeed iyagu inay noqdaan mustaqbalka cidii go'aan ka gaari lahayd yaa u qalma dalkiina inuu hogaamiyo Rizal waxa jira wax dad badan ay ku tilmaamayaan ama dadka qaar ay ku tilmaamayaan xiisad siyaasadeed ama wadanka si guud uga jirta hadalhayn la xiriirta adinka uun xukuumadda iyo habka ay arrimaha qaar u dhil gareynayso laga hadlaayo marka xasarada noocaas ama hadalhayn badan oo noocaas ay jirtana badan xukuumaddu waxay ka fikiraan inay xal raadiyaan xal noocee ah amaankaaga ku jira oo adii lahayd waa u wajahina arrimaha noocan ma yafiiri in xal mar walba la helo waa muhiim laakiin dadka Soomaaliyeed hore waa uu sheegay haddana waxaan rabaa inaan ugu soo celiyo oo aan iraahdo anagu wadankan waxaan ka rabnaa isbedel dhab ah isbedel wax ka bedela amniga dhaqaalaha horumarka siyaasadda wadanka anagu waxaan rabnaa dawlad Soomaaliyeed oo dadkeedu ay leeyihiin oo xoog leh isbedelku marka waa dhib isbedelku sidiisaba waa xanuun isbedelku waa meel cusub oo aad u guuraysid oo aanad ogeyn laakiin hore ayaan ummadda Soomaaliyeed ula wadaagnay in meesha hadda aan joognana ay tahay meel aan ummadda Soomaaliyeed u qalmin meeshii aan ka nimidna ay weli ka sii liidato meesha hadda aan ay ka liidato meesha hadda aan joogno in hal dariiq kaliya noo furan yahay dariiqaas wuxuu yahay dalka in laga hirgeliyo isbedel dhab ah si loo hirgeliyo isbedelkaas dhabta ah waxaa lala kulmayaa caqabado waxaan leeyahay marka shacabka Soomaaliyeed anagu waxaan wadanka joognaa in ka yar sanadkii inta ka yareed waxaa muuqata rajo ah in qof walba Soomaaliyeed noloshiisa ay wanaagsanaan doonto mustaqbalka sanadkii inta ka yar oo aan wadanka joognay qof walba Soomaaliyeed mushaarkiisii uu qaatay dhaqaalaha wadanku anagoo bixinay mushaar walba ayaa hadda 20 milyan iyo ka badan ay u taalaan aaminsanahay dawladda Soomaaliyeed akoonkeeda ay ku jirtaa oo jannaayana qof ka walwali doona ma jiro hadii Ilaahay raado inuu mushaarkiisa qaato anagoo joogna sanad ka yar ayaa waxa la leeyahay dunida leedahay waxaan idin kala shaqeynaynaa sida aan dhaqaalaha u kobcin lahayn anagoo joogna sanad ka yar ayaan 200 milyan la saxanay dawladda Qatar anagoo joogna sanad ka yaraan 300 milyan la saxanay dawladda Mareykanka anagoo joogna sanad ka yar ayaa adduunyada European Unionku nagu soo wareejiyeen in contract walba anagu aan gali karno oo aan iyagu go'aan noo gaari karin anagoo joogna sanad ka yar ayay bilaabeen inay lacag toos ah akoonkeena ku soo shubaan anagoo joogna sanad ka yar ayaan waxaan ka qabanay amniga iyo militariga iyo booliska sida adigu hadda ka hadlaysay anagoo joogna sanad ka yar ayaan soo deynay maxaabiista aad sheegaysay anagoo joogna sanad ka yar ayaan soo celinay hawadii Soomaaliya anagoo joogna sanad ka yar ayaan gurbidnay shuruucda ugu badneed oo waqtiga ugu kooban lagu gudbiyo qof walba oo Soomaaliyeed oo raba marka indhihiisu inay wax qabtaan uu kala garanayaa dariiqa saxda ah iyo dariiqa khaladka labo taliye oo kala ah taliyaha booliska iyo taliyaha nabad sugidda ayaan weli la magacaabin October dhamaadkeedina xilalkii laga qaaday rag bedel lahayn aan weli la magacaabin dad badan isweydiinaya maxaa dahaas ugu wacan sidaas la mid ah laba wasiir oo xukuumadda ka tirsan oo midna iscasilay midna xilka laga qaaday ayaan weli boosaskoodii la soo buuxin dahaas maxaa u wacan dad badan isweydiinaya Soomaalidu way degdeg badan ma waa muhiim in la isweydiiyo muhiimaddu ma aha in taliye la magacaabo muhiimaddu waxay tahay booliis noocee ah ayaan rabnaa nabad sugid noocee ah ayaan rabnaa saldhig noocee ah ayuu yeelanayaa ciidamada nabad sugidaan rabno mustaqbalka inay shaqeeyaan ma waxay ahaanayaan sida hadda ay yihiin mase si kale ahaanayaan booliis noocee ah ayaan rabnaa waxaa muhiima inaan marka hore eegno aasaaska waxaa jooga dad khibrad leh oo ku sameeyaal ah oo shaqo fiican haya oo aan aaminsanahay inay iyaga laftooda dalkan wax soo qabtaan haddana amniga wax ka qabtaan dhamaystirkeedana uu imaanayaa sidaas sidoo kale ma aha in la iska ilaaway in jago wasiir ay bannaan tahay macnaheedu ma aha maanta wax bannaaneedana maanta buuxino qofkii ka soo horbax ugu horeeyo aad tiraahdo kaale adigu buuxi waa inay ku qotomaan siyaasadda dawladdu ay ku shaqeyso iyo horumarka aan rabno wadanka inaan gaarsiino qof noocee ah
ayaa qaban kara. haddana meesha waddanku uu marayo waxaan u baahannahay mar walba inaan xulanno qofka ugu habboon oo qaban kara shaqada mar walba bannaanaad. waayahay mar aad baarlamaanka kalsooni weydiisanaysay mudane ra-iisul wasaare waxaad sheegtay in uu tusaale ama role model ku yahay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdirasaaq Xaaji Xuseen. maxaa ka mid ah ood nala wadaagi kartaa tilmaamaha uu tusaalaha kuugu yahay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen? may waxaan aaminsanahay horta dad badan oo Soomaaliyeed oo dalkan madax ka soo ahaa waqti fog iyo waqti la soo dhaafayba inay runtii yihiin dad Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed wax badan u soo galay, wax badan soo qabtay. Cabdirasaaq ilaahay u naxariisto wuxuu ahaa nin Soomaali ah, Soomaalinimadiisuna ay dhab tahay oo aan qabiili ahayn. waxaa kaloo ahaa nin Soomaaliyeed oo aaminsan dalkan si loo hormariyo waa inaan lagu shaqeyn qabiil ee lagu shaqeeyo qof waliba kartida iyo hufnaanta uu leeyahay. waxaan aaminsanahay ereygaasi inuu ahaa erey muhiim ah, sida keliya horumar lagu gaari karana inay tahay inaan la eegin qofka qabiilkiisa la eego wax uu garanayo, inaan ka baxno waxaas markoo aan soo gaarno waqti dadka Soomaaliyeed lagu qiimeyn karo maxay dalka ku soo kordhin karaan. waa rajada iyo diilada aan ka qabo ummadda Soomaaliyeed. Allah u naxariistay madaxweyne Aadan Cadde iyo Cabdirasaaq waxaan aaminsanahay inay si wanaagsan u soo wada shaqeeyeen waqtigii ay dalka madaxweynaha iyo wasaaraha ka ahaayeen. labadaba Allah u naxariisto, abaal badan waan u haynaa sida aan ugu hayno dadka kale oo naga horeeya madaxda oo kaleba, laakiin Cabdirasaaq waxaan u soo qaatay arrinka. waayahay ma jira hogaamiye ama shakhsiye kale oo ama siyaasi ama public figure kale oo aan Soomaali ahayn oo isagana meelaha qaar tusaale kaaga ah? may run ahaantii aniga horta dad badan oo jira dunida tusaale waxa ay ah, laakiin dadka Soomaaliyeed tusaale waxa ay ah madaxda hadda aan ku sheegay, tusaale waxa ay ah dad aan madax ahayn, gabdho Soomaaliyeed oo ururada Soomaaliyeed ka shaqeeya oo habeen iyo maalin taagan. tusaale waxa ay ah odayaal Soomaaliyeed oo weli taagan oo ka shaqeynaya qarannimada iyo dowladnimada. tusaale waxa ay ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo gaajaysan oo mushaar aad u yar la siiyo oo ciidan ah oo weli jidadka taagan marna aan ka daalayn qarannimada. tusaale waxa ay ah dad Soomaaliyeed oo abwaaniin ah oo mar walba anagu markaan isaysano ka hadla mustaqbalka qarannimada ummadda Soomaaliyeed. tusaale waxa ay ah dhalinyarada iyo culimada Soomaaliyeed oo mar walba yiraahda hal isu yimaado. hadda aniga hadafkaygu kaliya waxa uu yahay ma arki karnaa Soomaaliya ah tii dadkii naga horeeyay anigu aan ku jiray arki jireen ama tan kuwa naga yaryar ay xaq noogu leeyihiin. shaqada aan haayana waxaan aaminsanahay inay tahay dariiqii arrinkaas loo mari lahaa. Wasaare xilliyada aad firaaqada tahay iyadoo firaaqadaaduba yar tahay maxaad qabataa oo ugu badan? nasiib darro firaaqaba ma leh aad iyo aad wadaan runtaan sheego. shaqadu waa shaqo runtii aad u qaadanaysa waqti aad u badan. waxaa yar marka waqtiga aad ku qaban kartid wax aan shaqo ahayn. nasiib darro. ugu dambeyn dookhaaga fanka iyo isboortiga maxaa nooga sheegi kartaa? fanaankee ka heshaa, kooxdee taageertaa, wax nooga sheeg. ma rabo in aan ka hadlo, laakiin waa idinkii arkaya markay socdeen cayaaraha dowlad goboleedyada gobolka Banaadir inaan asbartiibada tagay oon soo fiirsaday. waxaan rajeynayaa runtii in aan soo celin doono ciyaarihii gobolada. waxaan rajeynayaa inaan garoonka Staadi Muqdisho sanadkan isku dayi doono inaan bilowno sidaan uga shaqeyn lahayn. sababtoo ah waxay ila tahay ma aha inaan isboortiga iyo footballka jecelahay kaliya. waxaan aaminsanahay in wax laga qabto arrimaha isboortiga, inkastoo wasaaraddeenu hadda shaqo fiican ay qabatay wasiir Khadiijo, laakiin waxaan aaminsanahay in isboortiga la siiyo fursad inay amniga wax ka tari karto, inay isku dhawaanshaha wax ka tari karto, inay ummadda midnimadeeda wax ka tari karto, inay dalka dib isugu keeni karto. marka inaan dib uga shaqeyno arrimaha isboortiga waa muhiim.
waxaa ku soo haray fanaaniinta Soomaaliyeed iyo suugaanta waxay qayb ka yihiin abuuridda nabadda iyo xasiloonida dalka. waa u dhegan nugulahay marka waana jecelahay in mar walba aan iraahdo fanaaniinta iyo abwaaninta iyo guud ahaan arrimaha la xiriira arrimaha abuuridda hal abuurka in fursad la siiyo waa muhiim. sidoo kale waxaa muhiim ah shaqada idinka aad haystaan, idinka la'aantiina wax badan lama qaban karo. dadka saxaafadda ka shaqeynaya iyaga laftooda waxay mudan yihiin ammaan. aad iyo aad u mahadsan tahay mudane ra'iisul wasaare, waa ku mahadsan tahay waqtigaaga. waa mahadsan tahay aad iyo aad. daawadayaal idinkuna aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin la socodka barnaamijka. intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa waraysiga aanu la yeelanay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre.